kulan wacan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meelol baad joogtaan iyo su'aal baad oo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah TPLF oo gacanta ku dhigtay buuraha istiraatiijiga ee Zobel ee u dhaxeeya deegaanka Canfarta iyo deegaanka Tigreega waxay sidoo kale TPLF ay shaaca ka qaaday deegaanada ay qabsatay 4 maalin ee dagaalka uu ka socday gudaha dalka Itoobiya waxaana kamid ah deegaanada ay sheegtay inay qabsatay Fokisa Mandevera iyo sidoo kale Kobo Robit Shoja Maryam iyo deegaano badan oo hoos yimaada deegaanadaasi waxay sidoo kale maanta uu dagaal culus ka socday agagaarka Waqomara iyadoo ciidamo aad u tiro badan oo Itoobiyana ama ciidamada militariga ee dalka Itoobiya kamid ah inay soo bandhigeen inay gacanta ku dhigeen 4 maalin ee dagaalka ay kula jireen ciidamada militariga dalka Itoobiya dhinaca kale dawladda federaalka ee Itoobiya war ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay TPLF wada hadal shuruud la'aan ay la galayso iyagoo baaq u diray shacabka Tigreega isla markaana ka codsaday in TPLF aysan ku khasbin dagaalka ay ka qayb qaataan ee lagu burburinayo dalka Itoobiya taliyaha ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya ay xaalad adag ku jirto caalamkuna uu u soo gurmado isla markaana ay qarka u saaran tahay inay burburto wuxuuna sheegay in dagaalkan iyo dagaaladii sanadihii hore ka socday ee ka bilowday gudaha dalka Itoobiya ay kala duwan yihiin haddana ay ku jirto xaaladii ugu dambeysay ee dalka Itoobiya haddaan la soo badbaadinin dhanka kale magaalada Addis Ababa korkeeda ciidamo kolonyo oo ka u socday furimaha hore ee dagaalka ay jabhadda xoreynta Oromiya ay cagta marisay iyadoo dhimashada iyo dhaawac iyo khasaaraha halkaasi uu aad u tiro badan yahay waxaan gabi ahaanba warkeena ku eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ee ka sii daraysa waxaana istuuriyaha igula sugan saaxiibkay daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya daacad waan dhaway saaxiib haddii aynu ku bilowno TPLF waxay si hordhaca u shaacisay goobaha ay qabsatay 4 maalin ee ciidamada militariga dalka Itoobiya ay dagaalka kula jirtay bal xagee wax qabsatay TPLF maxaase ka jira sheegashada ay sheegtay in deegaanada aadka u tiro badan ay qabsatay Santiago sida aad ogtahay Itoobiya maalintii afraad waxa ka socda dagaal xooggan oo waxba la isu reebanin labada dhinacna mid kasta uu adeegsanaya awoodiisa iyo tabartiisa si uu uga adkaado TPLF war hadda ka soo baxay waxa ay sheegeen inay qabsadeen deegaanada ah Gugudo Fokisa Zobel Mandafera Kobo Robit Shoja Maryam iyo sidoo kale Takulecha ciidamada Tigreegu waxa ay sheegeen in ciidamada Itoobiya aagaasi ku sugnaa ay ka dhigeen waxay dileen waxay qabtaan iyo sidoo kale wax ay qafaashaan oo ay biyaha ku dhaansadaan Tigreegu war hadda ka soo baxay waxay sheegeen in aysan shaacin doonin guulaha hordhaca ay gaadhayaan sidoo kalena ay dib u dhigayaan in Itoobiya ay ka qirato goobaha ay ka qabsatay iyo sidoo kale dhurbaaxooyinka ay u geysatay marka laga yimaado wararka dheeriga ee hadda helayna waxa way sheegayaan in buuraha istiraatiijiga ah dagaalkana muhiimka u ah una dhaxeeya deegaanka Canfarta iyo Tigreega in ay TPLF gacanta ku dhigtay ciidamada Itoobiya halka ku sugnaana ay bataatan bacagta mariyeen sidoo kale waxa la sheegayaa in ka badan 700 oo qoys in ay ku soo barakaceen oo deegaanka Canfarta gudihiisa ay soo barakaceen soona gaadheen magaalada Samara ee deegaanka Canfarta magaalada Robit oo ah goob istiraatiiji ah kalena saari doonto cidda ku guuleysan doonto dagaalka ka socda buuraleyda Itoobiya oo ah meelaha laga galo magaalooyinka Waldiya Dhasay Kombolcha iyo sidoo kale ee gobolka Shawa ee deegaanka Oromiya ayay TPLF sheegtay in hadda maqribkan ay gacanta ku dhigtay baraha bulshadana waxay ku faafisay muuqaalo ciidamo aad u tiro badan oo militariga Itoobiya kuwaas oo ay ka dhigtay waxay laysay waxay qabatay iyo sidoo kale waxay qafaashay oo aan isha la soo dhigi karin baraha bulshada ama la isticmaali karin markaad aragtaan aad ka naxayso ama ka gagaxayso sidoo kale waxa soo bandhigtay TPLF baabuurta waaweyn ee uraalka loo yaqaan Itoobiya adeegsatay taangiyada iyo shilkayaasha oo gubanayo sidoo kale holcahayo war ka soo baxay dawladda Itoobiya waxay sheegtay in ay shuruud la'aan diyaar u tahay in wada hadal la gasho TPLF dhinaca kalena dagaalkani uu halakeeyay in ka badan kumanaan Itoobiyana naftoodii sidoo kalena khatar uu ku jira dalka Itoobiya hadda waxa la sheegayaa deegaanka Waqooxumara oo ah deegaanka u dhaxeeya Tigreega iyo Amxarada dhinaca kalena xuduud kala ah dalka Suudaan in uu ka socdo dagaal aan waxba la isula reebanin oo labada dhinacba mid kale u dano inuu ugu awood sheegto deegaankaasi waxa la sheegayaa TPLF gacanta ku dhigto in jiritaanka Itoobiya la isweydiin doono dhinaca kalena ay TPLF heli doonto ciidamo aad u fara badan oo ku sugan dhinaca deegaanka ee wadanka Suudaan halkaan ay ka soo gali doonaan oo Suudaan ciidamadaas halka ku diyaarisay dhinaca kale Santiago wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya oo ka soo jeeday isagu qoomiyadda Tigreega inta badanna ka amar qaata xukuumadda Abiy Ahmed ama ka tirsan xisbiga BB oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in shacabka Tigreega aysan TPLF u adeegsanin madaafiicda iyo sidoo kale rasaasta ay ridayaan shacabka Tigreegana ay ka fogaadaan
colaadaha ka howlaaqahaya dalka Ethiopia loona baahan yahay in shacabka Tigreega la baadiyo wasiirka ama isha taliyaha guud ee ciidamada cirka Ethiopia aan idhaahdee isagana wuxuu sheegay in xaaladda Ethiopia maanta ay khatar ku jirto ciidamada cirka Ethiopia tira iyo tayo midna aysan haynin sidoo kalena TPLF awoodda ay adeegsanaysa inay tahay mid aan horey loogu aqoon dhinaca TPLF dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ama xogaalka u ah waxay sheegayaan TPLF markii ay weyday meel ay cunto ka hesho ama meel ay ku badbaado ama meel ay ku baxsato in ay hadda door bidayso ama ay go'aan ku qaadatay in dagaalkan ilaa ay ku qabsato arad kilo ah meesha Ethiopia looga arrimiyo in aysan istaagin uraalka iyo kaaraha Tigreegana uusan istaagi doonin ilaa uu soo dhex istaaga magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia wararka kale naga soo gaadhay magaalada Addis Ababa duleedkeedana waxaa la sheegayaa jamhadda xoreynta Oromia in ay gubtay baabuur ka tirsan kolonyada ciidanka militariga Ethiopia kuwaas oo ku sii jeeday deegaanka Tigreega deegaanka u dhaxeeyo magaalada la yiraahdo Bati iyo magaalada Kombolcha ciidamadii halkaasi marayay jamhadda xoreynta Oromia indhahay u shidatay wayna burburisay sida la sheegayo waa sida iyaga ka soo baxday dhinaca dawladda Ethiopia ama xisbiga BB ee uu xukumo Abiy Ahmed war ay hadda soo saareen iyaguna waxay sheegeen inay diyaar u yihiin shuruud la'aan inay dagaal galaan balse dhinaca TPLF ma jirto wax jaxaanjixo ilaa iyo hadda dhinacooda ka soo yeedhay wagaag horaantii bilowga dagaalkan uu bilaabanaya maalintii ugu horeysay waxay dowladda federaalku ay sheegtay in awood ka duwan awoodii hore ee TPLF ay u isticmaashay ay isticmaali doonto oo awoodeedii ugu dambeysay ay isticmaali doonto taasi oo ay ku sheegtay in lagu soo tirtirayo haddana dowladdu waxay sheegtay in wada hadal shuruud la'aan ay la galayso bal awoodii dowladda ay sheegtay xagee aaday sidaad ogtahayba Santiago sanadii 2020 bishii November dagaalkii qarxay ee Ethiopia ciidamada Ethiopia waxay sheegi jireen had iyo jeerba in dagaalkan ay ku gacan sareeyaan TPLF ay jabinayaan meelo badan ay ka qabsadeen waa taad ogeydo waxay galeen magaalada Maqale Nazareed Debrecen iyo deegaanka Tigreega oo dhan bay Ethiopia gacanta ku dhigtay oo ugu dambeynna dhowr maalmood kadib abaabul ay samaysay TPLF waxay sabab u noqotay in ciidamada Tigreegu ay magaalada Addis Ababa soo jiraan wax ka yar 100 ilaa 120 kilomitir taa macnaheedu marka waxa weeye shalay ciidanka Ethiopia soo ka dhisnaa ka awood badnaa ka midaysnaa iskaga xidhnaa waxba ka qaban waay Tigreeg maanta ciidanka Ethiopia qoomiyad qoys jifa deegaan iyo tuulo u kala fadhiyo oo aysan is arki karin oo saraakiisha ciidamada ugu badnaa ay baabeen in ay TPLF waxba ka qabanayaan ra'yi ahaan ilaa ma aha Ethiopia way u muuqataa dhinaca dawladda Ethiopia markasta de wadanku waa wadan wuxuu sheegay awoodo iyo sidoo kale inuu iska celin karo cadawga ku soo duulay iyo inuu ka hortagi karo cid kasta oo rabtay inay burburiso Ethiopia laakiin hadda xaalku soo muuqdo waxaad moodaa ciidan Ethiopia la isku halayn karin inaysan jirin Abiy Ahmed xaalku ku xun yahay militariga Ethiopia ay dhabta iyo arrinta rasmiga ah oo aynaysan waxba iska caabin karin inay ogaadeen markaad eegto muuqaalada baraha bulshada lagu faafiyay TPLF ay faafisay iyo sidoo kale dagaalada halkaas ka dhacayna waxa ku muuqan hayo ciidanka Ethiopia inaysan bataatan diyaar u ahayn in ay ka hortagaan warar hordhaca oo helaynana waxay sheegayaan saraakiisha ugu sarreeyay ciidamada Ethiopia in ay u baxsanayaan dhinaca TPLF wagaag goobta hadda dagaalka uu ka socdo ee sheegtay in lagu halaagsamay oo 24 saac ee ugu dambeeyay uu dagaal ka socdo bal caasimadda Addis Ababa intay u jiraan adigoo dhageystayaasheena u sheegaya bal dagaalka iyo goobta la kala marayo Santiago hadda goobahan dagaalka uu ka socdo waa xuduudda gobolka Tigreega iyo sidoo kale deegaanka Amxaarada iyo Canfarta magaalada Addis Ababa waxaad moodaa in aan hadda loo soo dhaweyn deegaanada Gugudo iyo Fokisa Zobil Mandafira Koba iyo sidoo kale Robid iyo Shoja Maryam iyo Takulja dhammaanba waxay ku yaalaan xuduudka deegaanka Canfarta iyo sidoo kale deegaanka Amxaarada iyo Tigreega weli waxaad moodaa magaalada Addis Ababa in aan loo soo dhaweyn laakiin magaalooyinka loo soo dhow yahay dadku ay fahmi karaan waxa kamid ah magaalooyinka Dhasay iyo Kombolcha iyo sidoo kale gobolka Shawa ee deegaanka Oromia iyo deegaanka Amxaarada meesha xuduudda ka leeyihiin ama meesha la yiraahdo Liu Zonka ee u dhaxaysa Amxaarada iyo Oromada goobaha hadday TPLF soo gaadhaan way adkaanaysaa in laga saaro ama dib dambe looga qabsado dhulkaasi TPLFna waxa ka go'aanba sida la sheegayo in aysan diyaar u ahayn inay dib u noqoto dhinaca kale ay gacanta ku dhigto xukunka Ethiopia maadaama shacabka Tigreegu ay hadda baaba'ayaan xaalad xun oo cunno yaraana ay qarka u saaran yihiin intaa waxaan kugu darahayaa Aisha Santiago war ka soo baxay hadda TPLF intaan hadlaynay waxa ay sheegeen eedayntii ay u soo jeediyeen hay'adaha qaramada midoobay dawladda Mareykanka iyo sidoo kale midowga Yurub ee ah inay dhaceen in ka badan 500 oo kun oo shidaal ah inay tahay been iyo waxba kama jiraan dhinaca kalena TPLF ay horey u amahaysay hay'adaha caalamiga ah in ka badan 660 kun oo litir oo shidaal ah oo ay ku howlgalayeen shidaalkii shalay ama hayeen ayay ka qaateen ee aysan jirin shidaal ay boobeen taasoo u muuqatay TPLF inay iska beriyeelayso eedaha loo soo jeedinayo war hadda ka soo baxay laftigiisa dawladda Mareykanka waxay sheegaysaa duqaymihii shalay ka dhacay magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega inay ahaayeen kuwa xadgudub ku ah insaanka lalana beegsaday caruur haween goobo waxbarasho goobo caafimaad iyo sidoo kale goobo ganacsi
وحقاق ciidamada militariga ee dalka Ethiopia waa la ogyahay tirada inta ay leeyihiin Tigreeguna waa shacab aad u yar markii loo fiiriyo tirada ay kaga jiraan qowmiyadaha dalka Ethiopia bal awoodda inta dhan ee ciidamada militariga ee dalka Ethiopia ay ku burburiyeen xaggee ka heleen baa la isdhihi karaa sidaad ogtahayba Santiago Ethiopia xilligan wadankan TPLF waxay soo xukumaysay in ka badan 7 sano waxay gacanta ku haysaa hay'adaha kala duwan ee dalka Ethiopia militariga booliska sirdoonka iyo sidoo kale qorshe kasto dawladda Ethiopia ay ku shaqeynayso dhulka la galahayo meesha lagu dagaalamay taangiga la isticmaal intaba TPLF way ogtahay markaad ogtahay cadawgaada wuxuu haystana waxa ku fududaanaysa awoodaada inaad burburiso taa waa qodobka kale marka laga soo tago ciidamadan Ethiopia waxay u kala jaban yihiin qoomiyado iyo deegaano meelaha ay ku dagaalamayaan intooda badan kuma ay qanacsano dhinaca kale shacabka Tigreega ee amxaarada aan dhahe ee lagu dhex dagaalamayo ma soo dhaweynayaan ciidamada Ethiopia arrimahaas oo dhan maadaama jiraan Tigreeguna ay yihiin dad iyagu mowqif ahaan iyo isku kalsooni ahaan iyo shacab ahaan u midaysan midda kale dad aysan waxba ka dambaynin oo inay dhintaan iyo inay noolaadaan ay ka doorbidayaan inay dhintaan ilaa xaalad ay ku jiraan ka baxayaan waa dareemi kartaa labada qof say mintad u kala yihiin ama ay u kala qabsan karaan ama guulaha u kala gaari karaan arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo tayada iyo tirada ciidamada Ethiopia wax macna ma soo kordhinaysa mowqifka iyo mawjada lagu dagaalamayo ayaa kala qaadi doonto cidda ku guuleysanaysa dagaalka Ethiopia waxaag dagaalkii 4 maalin ee ugu dambeysay socday waxaa la sheegay in hub casri ay isticmaalhayeen dhinaca TPLF dawladuna waxay ku eedeynaysaa in dawlado kale ay soo siiyeen dhowrkii sano ee ugu dambeeyayna bandow ayaa saarnaa oo cunaqabatayn ayaa saarnaa dhammaanba deegaanka Tigreega iyo xuduudaha uu leeyahay gobolada kale ee sida Suudaan iyo sidoo kale Eritrea naftigeeda dagaal ayay ku soo qaaday baa leeyahay oo dhinaca kale ee xadka ila leedahay Tigreega iyo Eritrea ayaa dagaal ka socdeen bal hubkani xagee ka helay xagee ka shaldhig kara TPLF xagee se loo soo mariyay sidaad ogtahayba Santiago dagaalkan ka socda dalka Ethiopia xilligan TPLF waxay ku jirtay 7 bilood u dambeysay hub aruursi tababar ciidan iyo u diyaar garow sida iskaga caawin lahayd ciidamada Ethiopia waxaa kaloo meeshaasi ka degahayay diyaarado ay leeyihiin qaramada midoobay midowga Afrika iyo wadamada beesha caalamka kuwaasoo Ethiopia marar badan ay codsanaysay in ay jeegarayso ama ay iska fiiriso diyaaradaha gudbahay iyo halka ay u socdaan halka Tigreegan ay ku andacoonayeen in cunaqabataynta laga qaado dhinaca kale saad ogtahayba Tigreegu wadankan muddo dheer bay soo xukumayeen hubkiisa iyo sanadiisa ugu fara badnaydna gacanta ayay ku dhigeen inta uusan dagaalkan qarxin ka horna waxaa la sheegay in hubka Ethiopia yaalay waqooyiga la iskaga difaacay dalka Eritrea in ay Tigreegu sii xabaasheen marka walxaha qarxa iyo hubkan ay isticmaalayaan waxa la oran karaaba injineeradoodii iyo shakhsiyaadka ku takhasusay arrimaha militariga ayaa Tigreegu hagaajiyay taa ayaana sabab u noqon karta in Tigreegu hadda ay helaan awood xad dhaafa iyo sidoo kale hub ay ku dagaalamaan meeshana kama madno inay jirto gacan kale oo Tigreega siinayso hub ay ku dagaalamaan balse ilaa iyo hadda ma caddo cid ay tahay waxaag sidee kula muuqda hadda dagaalka wajigiisa koobaad dagaalka wajigiisa koobaad wuxuu ila muuqdaa horta in labada dhinacba mid kasta midka kale uu isku dayi doono inuu muquuniyo sidoo kalena uu awood sheegto Ethiopia waxay adeegsan doontaa diyaaradaha droneska ee Bayraktar TB2 ay ka soo gadatay dalka Turkiga iyo sidoo kale dawladda Imaaraadka Carabta waxay isku dayi doontaa in ay saaxiibo raasatay maadaama dawlad rasmi ah tahay dhinaca Tigreeguna awoodooda hadda ma aha diyaarad ee waxay adeegsan doonaan ciidamada lugta iyo infantryga halkaana waxa ka dhalan doonto in dagaalkan la isku riiqmo oo midba midka kale uu cagta u dhigo taana waxay sababi doontaa in Ethiopia uu ka dhaco ahli iyo halaag aan loo meeldayn haddii aysan soo kala gaadhin wadamada caalamka cidda ku kuleysan doonto dagaalkana waxay ku xidhan tahay hadba say u qabsato goobaha istiraatiijiga Tigreeguna maanta dagaalka inay gacan ku dhigaan wuxuu ku xidhan yahay sida u qabsadaan xuduudka isku xidha deegaanka amxaarada iyo Suudaan iyo sidoo kale jidka xadiidka ee Djibouti Addis Ababa waxaag markii laga soo tago ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo ciidamada TPLF yaa kale oo ka qayb qaadanaya dagaalka hadda socda ilaa iyo hadda ma caddo cid rasmi oo ka qayb qaadanaysa marka laga yimaado dalka Eritrea oo Ethiopia horey u garab istaagtay in ay dagaalkan kala qayb qaadato Tigreega jabis siyaas afwerk ciidamadiisa wuxuu galiyay heegan wuxuuna yiri ma dhaafi kartaan xuduudaha iyo goobaha furimaha wuxuuna ka cabsi qabaa in Tigreegu maadaama uu shalay la dagaalay dagaal kale duu ku celiyo inay xaqiisa ugu soo jeedsadaan marka hadda waxaad moodaa dagaalka inuu u dhaxeeyo ciidanka militariga Ethiopia oo garab ka helay maleeshiyaadka deegaanada ciidamada liyu boolisyada iyo shacabka deegaanka amxaarada iyo canfarta iyo Tigreego kaligooda waxaag ma laga yaabaa in ciidamada ama dagaalkaasi ay ka qayb qaataan ciidamada new booliska ee dawlad deegaanka Soomaalida maadaama sanadihii hore dagaalkii socday la sheegay in ciidamo badan furimaha hore ee dagaalka la geeyay kadibna dhibaato ay kala kulmeen oo laga soo saaray sida la sheegayo Santiago Aadan Faarax Cusmaan oo shalay soo gaaray magaalada Jigjiga caasimada dawlad deegaanka Soomaalida waxaa la sheegay inuu waday dhambaal ahaa in ciidamada liyu booliska dawlad deegaanka Soomaalida la geyn doono furimaha hore ee dagaalka ka dhanka TPLF ilaa 5,000 oo askarina la qaadi doono oo halkaas la geyn doono
warkaasi si weyn ayuu ugu faafay dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyo gudaha ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida balse waxaa jira shaki badan oo ka imaanaya dhinaca ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida maadaama dagaalka u dhaxeeyay ciidanka Liyu Booliska iyo Al-Shabaab Ethiopia aysan wax weyn ku tarin dhinaca kalena xasuuqi loo geystay shacab gobolka City iyo xasuuqi loo geystay ciidamada Liyu Booliska maxaabiista ilaa iyo hadda ay ka haystaan deegaanka Canfarta aan ilaa hadda loo soo celin dhinaca kale saad ogtayba ciidamada Liyu Booliska saraakiisha ugu sarreeyay taliyahoodii ku xigeenkoodii waa tii xilka laga qaaday isbedel baa ku yimid isbedelka ku yimid iyo hogaamintan cusubna way ku adkaan doontaa inay diyaariyaan ciidamo cusub balse waxaa jira abaabul xooggan oo ay wadaan xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Aadan Faarax iyo shakhsiyaadka federaalka ku bantalo dowlad deegaanka Soomaalida si loo badbaadiyo kursiga Abiy Ahmed waxaa jira warar sheegaya in TPLF ay heshiis la gashay gabi ahaanba jabhadaha gudaha dalka Itoobiya ka dagaalamaya bal maxaad kala socotaa adigu TPLF hadda inta rasmiga la shaaciyay jamhadda xoreynta Oromiya waxay sheegtay in jidadka waaweyn Addis Ababa u balaqi doonto ayna soo dhaweyn doonto gamca furanna ay ku qaabili doonto maanta dagaalka ay ku qaadeen deegaanka Baatina wuxuu macno u yahay in jamhadda xoreynta Oromiya ay doonayso in kolonyo dambe oo ciidana aysan u gudbin dhinaca Tigreega jamhadda Ago jamhadda Qimaad iyo jamhado kale oo ka dagaalama deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale Canfartaba waxaa la sheegaya inay Tigreega la jaal yihiin sidoo kale ay ka garab dagaalamayaan garab iyo gaashaan ay u yihiin taasoo macnaheedu yahay in TPLF hadda ay heshay awood aad u badan dhinaca kale TPLF dagaalkan ay magaca ku furtay oo ah dagaalka waa bariga ama waa soo baxa macnaheedu waxa weeye in aysan Addis Ababa ka qabsan doonin dhinaca deegaanka Tigreega ay ka qabsan doonto dhinaca deegaanka Oromiya aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo inala falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordhay dagaalka lagu halaagsamay ee ka socda gudaha dalka Itoobiya tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idinka tagaynaa amaana Allah